1500 sano ka hor ayaa gobolkan hadda maanta Najd la yiraahdo ee Sacuudiga ku yaala ayaa waxa ku tartamay laba faras oo midna daaxis loo oran jiray midna al-Ghabra labadii faras iyagoo tartanka ku jira ayaa mid kamid ah fardaha waxa dhexda loo dhigay isbaaro dad baa meesha ku sugayay waa laga nixiyay taasoo keentay inuu faraskii labaad markaa guuleysto taas waxay keentay colaad aad u ballaaran oo isku rogtay markii dambe dagaalka oo socday 40 sano ayuu dagaalkaasi socday wuxuuna galaaftay nolosha dad aad u tiro badan waxaana markii hore sababay faras waxa dhacday istiraadid waa casrigii jaahiliga weeyaan taasi casrigan cusub aan ku noolnahay ma dhici karto hase yeeshee 1860 haddaan wax yar u soo darugno waa 160 sano ka hor ku dhawaad ayaa dalka Lubnaan goob wada ciriiri ah waxa ku kulmay laba nin oo dameer saaran mid wuxuu ahaa qolooyinkan dursiyiinta la yiraahdo midna wuxuu ahaa Maaroni oo Christian buu ahaa maadaama ay labada dameer isku mar ay meesha isku weydaarin kareen ayaa mid walba kii kale wuxuu ka dalbaday inuu isagu markaa dib u sukado suu kan kale u soo maro way diideen labadoodaba waa eriya la isweydaarsaday waa la kala xanaaqay kadib markii dambe ninkii dursiga ahaa ayaa wax gacanta ku jira intuu qaatay ayuu ninkii kale ku dhuftay halkaasna ninkii baa ku dhintay dagaal baa ka qarxay ku faafay Lubnaan iyo Suuriya ay ku dhinteen 15,000 oo qof 15,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaal ku qarxay dameerkaaga dib u cesho iyo uma ceshanayo waad soo dhan kartaa waa 150 sano 160 sano ka hor oo casrigan ku noolnahay waxaas ma dhici karo dadkaas wali haddana dadku casrigii jaahiliga inkastoona ahayn laakiin jahli fara badan baa jiray waxaan u soo talaabaynaa dhowr cisho ka hor dalka Liibiya magaalo ku taala koonfurta 660 kilomitir koonfurta ka xigta markaa caasimadda ayaa waxa fadhiyay nin daanyeer markaa uu iska lahaa ayuu markaa la fadhiyay meeshii la fadhiyay gabdho markaa iskuulkii ka soo baxay ayaa soo hormaray oo markaa qabiil kale oo abnaa Suleymaan la yiraahdo ay markaa ka tirsan yihiin kadib waxa dhacday daanyeerkii baa intuu gabdhihii saa ugu dul boodbooday mid ka mid ah xijaabkii ka bixiyay waxa dhacday in qabiilkii markaa qaar ka mid ah rag ka mid ah qabiilkii gabdhaha oo markaa meesha fadhiyay ay rasaas ku furaan daanyeerkii iyo ninkii iska lahaa ninkii baa halka ku dhintay oo isaguna markaa u dhashay qabiil kale oo weyn oo magaalada degan taas waxay keentay inuu dagaal qaraad oo meesha ka qarxo dagaalkaas oo galaaftay nolosha dad oo la isku adeegsaday hubka culus taangiyada iyo hubka kale waa 3 marxaladood oo kala duwan 3 dagaal oo kala duwan oo u bilaabmay markaa sababo aad u yani lagu qosli karo absolutely waxa weeyaan mar walba waad fahmi kartaa in colaadu kaliya taa ku abuurmeen oo ay jirta asbaabo kala duwan oo ka hooseysa hase yeeshee waxa la yaab leh waxyaabaha qarxin kara colaadaas gudaha ku jirtay waxyaabo ay noqon karaan aad u fudud dareenka qofka bini'aadamka markuu banaanka ka joogo colaadahan uu maqlo waxan dhacay dareenkiisa ugu horeysa inuu ku qoslay noqonaysa waxan uu la yaabo maxaa dhacay qofka bini'aadamka markuu ka fog yahay arrimaha oo arrimuhu ayna toos u taabanayn wuxuu noqdaa sida gorgorka oo kale oo kor jooga oo wax walba hoostiisa si fiican u arkaya qiimeyn kara garanaya wax walba wixii sababayay iyo dhinacay u socdaan sida daraadeed wuxuu awood u leeyahay inuu markaa go'aan saxsan oo ku saabsan uu ka qaato inta badan hase yeeshee markuu qofku ku dhex jiro sheekadii wuxuu noqonayaa sida quraanjo oo kale oo arkaysa kaliya wixii ka hooseysa maanta colaadaha ka jira dhulkeennan ay Soomaalidu degaan kama duwana colaadahan ay sababeen faraska iyo dameerka iyo daanyeerka asbaaba aad u fudud oo la xallin karo ayay u dhacaan dagaalo badan oo galaafta nolosha dad aad u fara badan ceel biyo oo 10 ceel oo kale la dhisi karo dhul yaroo abaaroon waxba ka bixin ama jaga siyaasadeed iyo han siyaasadeed iyo waxyaabo kala duwan oo islamada qofka banaanka ka jooga uu kula yaabaya saad u la yaabaysay qofkii dadkii isku dilay dameerka iyo daanyeerka iyo faraska adigu waxaad ku dhex jirtaa wixii quraanjadii baa tahay arkaya waxa ka hooseeya kaliya aanan arkayn
waxyaabahan guud ee ku hareersan iyo waxa kaaga dhacay. sidaa daraaddeed qofku mar walba wuxuu u baahan yahay in colaadan iyo waxyaabaha dhulkiisa ku dhacaya uu wax yar ka fogaado, uu waqti isku siiyo inuu horta process gareeyo waxaan dhacay maxay u dhaceen, iyo in la heli karo xal ka duwan dagaalkan oo ah waxa ugu horeeya aan ku xallino mashaakilkeena. qofku inuu istaago baadho inay jiri karaan habab kala duwan oo marka lagu xallin karo colaadan, oona noqon mar walba dadkii dameerkii iyo daanyeerkii iyo faraska isku qabsada oo isku dila oo dhiig fara badan ku daadiya. Assalaamu calaykum.